munaasabada ciidda ayaa si weyn looga ciiday maalintii koowaad iyo maalinta labaad magaalada Muqdisho ee caasimadda dalka Soomaaliya. Dadku iyaga oo faraxsan ayay gacmaha haysteen, qaarkood caruurtooda ayay wadeen iyaga oo geenayay goobaha loo dalxiis tago, masaajidda salaada lagu tukado iyo wadooyinka waaweyn ee magaalada Muqdisho. waxay ahayd mid si aad ah looga dareemay farxadda munaasabada ciidda magaalada caasimadda ah ee Muqdisho. dadweynaha Soomaaliyeed iyo ummadda Islaamka meel kasta ay caalamka ay ka joogaan maanta isku mid ayay u ahayd oo ma jirin kala duwanaansho dhanka salaada ciidda dukashadeeda ah. sida lagu bartayna gobolada dalka Soomaaliya gaar ahaan gobolada dhexe ayaa inta badan salaada ciidda waxa ay ka dambeyn jireen hal maalin gobolada kale ee dalka, laakiin shalay iyo maanta ciiddu waa isku mid oo Islaamka si isku mid ayay u ciidayaan. wajiyada dadka ciidaya waxaa kaaga muuqda farxad iyaga oo isugu hambalyeynaya munaasabada ciidda oo ah maalinteedii koowaad. ciidan waxa ay ku soo aaday maalin Jimco ah oo ummadda Islaamka ciid ay u tahay iyadoo ay noqotay ciidii kale ee udxiyada. waxaa inta badan ciidan lagu yaqaanaa gowracidda xoolaha oo dadka lagu sadaqaysto. ehelada dadka qaarkiina farxadda ayay ku wadaagaan munaasabada maanta oo kale. markaad la sheekaysato dadka waxay ku sheegayaan inay ku faraxsan yihiin in munaasabada ciidda ay dalkoodii hooyo ay ku ciidaan. waxaa jira kumanaan dad ah oo dibadda iyagana ku ciidaya. waa kuwan qaar ka mid ah dadka ciidayay oo munaasabada iyaga oo ka faa'iideysanaya nala wadaagay dareenkooda. maalin ciid la adxa dadweynaha muslimiinta meel walba joogaan waxaan uga hambalyeeynaya ciid la adxa meel walba joogaan waxaan dhahayaa ciid mubaarak meel walba jooga farxadda awgeeda waan u hambalyeynaya. waxaan leeyahay ciid mubaarak. maanta waa maalintii ciid la adxa. maanta waxaan ku ciideysanaynaa beerta nabadda sida aad u jeedaan aniga iyo caruurta iyo asxaabteeda kaleba iyo qaar ka mid ah familkayga maanta waxaan ku ciideysanaynaa beerta nabadda. dhammaan Soomaali meel walba ay joogtaan waxaan leeyahay ciid mubaarak. runtii waa arrin farxad leh lagu farxo maanta inaha maalin ciid ay tahay muslimiinta dhammaan meel walba joogaan salaama. waxaan leeyahay ilaahay hanuu gaarsiiyo ciidan ciideeda bashbashi barwaaqo iyo reereen insha Allah. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. زكريا عبد الله أحمد وحنا كويس بيرتنا نبضة وحنا كيما مجالة حافظ حنطر دير وحنا أنت كسلام الساعي باشي خويدي فاطمة حسن أبي عبد الله أحمد مسلم لما سلام. بسم الله الرحمن الرحيم. مقعي وفرح قليف أحمد ما أنت ومالين جمعة waxaan ku ciideysanayna beerta nabadda dhammaan muslimiinta dhan waxaan leeyahay ciid wanaagsan kullu caam wa antum bi khayr. هذا يعني سلام يا دمان سومالي. ساكنة دكتور ما الجمعة إيدنا حسنا هو أبيك كله. هو سهرة أبين عب. سلام هو سهرة يا أبي عبد. يا عوالي لا عبد الشريف سلام أبيك هو يدك دمان. madax badan oo ka tirsan dawladda Soomaaliya ayaa munaasabada ciidda iyo salaadaba kula dukaday masjidka Isbahaysiga, masjidka madaxtooyada iyo masaajidda kale ee ku yaala magaalada caasimadda ee Muqdisho. waxaa sanadkan dadka ciidaya kamid ahaa oo farxadda nala wadaagay qaar kamid ah dadkii maxaabiista ahaa ee laga soo celiyay dalka Itoobiya kuwaas oo salaada ku dukaday masjidka Isbahaysiga. maalin ka hor ciidda ayaana dharkii ay ku ciidi lahaayeen waxa uu qaybiyay wasiirka amniga, gudoomiyaha degmada Waabari iyo mas'uuliyiin kale oo dawladda ka tirsan.